wuxuu isu dhigay inuu yahay diblomaasi damin kara dabka shidan dibna u furfuri kara wax kasta oo ka murgay Somaliland 7 sano ee la soo dhaafay ninkan waxa ay taageerayaashiisa siyaasiyiinta iyo xisbiyada wada riixaya u arkaan inuu yahay murashax lagu midaysan yahay oo haysta awood badan oo siyaasi ah iyo oday dhaqan oo isu keeni kara ardayo dhowr ah oo dugsan karo hogaamiye dawow ah kala irdhow siyaasadeed ee dhacay iyo nin aan waxba ku lahayn taqarradii hore sahana u noqon kara Somaliland cusub ku yahayba hogaamiyahan markii koobaad kursiga la waayay cagta ayaa hadda sameynaya diyaar garow iyo dadaal xooggan si uu marka labaad indhasha iyo saanta isula helo warbixintan ayaynu ku eegaynaa sooyaalkiisa gaarka ah midkiisa siyaasadeed iyo qodobada badka uu soo dhigay doorkan iyo doorashada maanta ah wana barnaamijkeennii mudan yahay bahay markaa wuxuu askari u shaqeeya dowladda Ingiriiska ee markaa Somaliland gumaysanaysay hilaaladii sanadkii 1955 ayuu ku dhashay isbitaalka weyn ee Hargeysa aabihina waxa uu ahaa askari u shaqeeya dowladda Ingiriiska ee gumaysanaysay Somaliland xerooyinkii kala duwanaa ee saraakiisha Ingiriisku u bedelayaan aabihii ayaa saameeyay waxbarashadiisa waxana uu wax ku bartay Hargeysa Burco Sheekh iyo Berbera wuxuu u tacabiray Muqdisho isagoo ka mid noqday barbaartii ugu horeysay ee ka aflaxday macadkii caanka ahaa ee Sidam ilaa uu dhameeyay heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda waxa uu ahaa shaqaale dawladeed oo ka tirsan xafiiska dawladagaha ka hor inta aan loo bedelin safaaradda Soomaalidu ku lahayd Moscow caasimadii midowga Soviyetka waxana uu ku shaqeynayay la taliye sare ilaa sanadkii 1991 uu noqday siyahayaha safaaradda kursigaasi oo muddo 6 sano ah fadhiyay waa nin aan waxba ku lahayn qaranjabkii ku dhacay Soomaalida kana qayb qaadan dagaaladii sokeeye ee dalka ka dilaacay way aragnimadiisa siyaasadeed ee Somaliland waxa ay la koosatay nidaamka axsaabta badan isaga oo ka soo bilaabay inta jirta kan hadda ugu daada weyn dugsiyada siyaasadda Somaliland waxana uu ka mid noqday xubnihii aasaasyaasha xisbiga u cid isaga oo wali qurba jooga Faysal Cali Waraabe ayaa u noqday imaam siyaasadeed juddi horena waxa uu kala shaqeeyay arrimaha dibadda oo khibrad diiran uu lahaa tan iyo 2005 xilligaas oo uu noqday xildhibaan golaha wakiilada Somaliland oo xisbiga uga soo baxay gobolka Saaxil isla sanadkaasi ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland wuxuu hogaamiyay mid kamid ah golayaasha ugu muddada dheer bariga Afrika in ka badan 12 sano ayuu ahaa isagu odayga aqalka wakiilada ee Somaliland waxaana muddadaasi ay dejiyeen 250 xeer oo ku dhawaad 60% u dhigmaysay xeerarka dalka oo dhan sanadkii 2017 isagoo wali gudoomiyaha waxa ay sasaageen hogaamiyihiisa xisbiga injineer Faysal Cali Waraabe kadib goldaradii murashaxooda ee doorashadii madaxtooyada 2010 garab uu hogaaminayay Cerro ayaa ku dhawaaqay ururkii wadani waxana uu ku soo baxay doorashadii ururada daaqadana waxa uu kala baxay xisbigii udub hogaamintiisa aqalku waxa ay lahayd maalmo badan waxana lagu xasuustaa meelmarinta heshiiskii taariikhiga ah ee DP World iyo Somaliland doodihii adkaa iyo hirdanka afkaarta siyaasiga ah oo mararka qaar gacan ka hadal gaari jirtay ilaa uu sanadkii 2017 bishii Agoosto uu iska casilay xilkii gudoomiyaha wakiilada waxaan baneeyay shaqadii gudoomiyenimada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland maadaama uu faytay inuu galo doorashadiisii madaxtooyada ee ugu horeysay isaga oo la tartamay murashaxiinta xisbiga kulmiye iyo cid wuxuuna doorashadaasi helay 41% codadkii la dhiibtay 7 sano kadib wali waa murashax madaxweyne ee xisbigiisa wadani doorashadana waxa ay noqonaysaa markii labaad ee uu tartamayo jagada madaxweynaha Somaliland wuxuu isu diyaarinayaa mid kamid ah doorashooyinkii ugu adkaa ee Somaliland Somara oo dhici doonta bartamaha bishan bilatay ee November isaga oo la tartamaya murashax xisbiga kulmiye ee ka guuleysay doorashadii tan ka horeysay 7 sano ka hor iyo gudoomiyihiisii hore siyaasad ahaan waxyaabaha uu doorkan Cerro miiska soo dhigay ee uu doonayay in lagu doorto waxa ka ah midnimada waxana uu isu arkaa inuu yahay xanjo isu hayn karta bulshada iyo birlab isu ururin karta inta ku kala irdhowday siyaasadda furista dastuurka oo inta badan lagu tilmaamo shaar ku talan kursiga madaxweynaha taas oo haddii uu ku guuleysto wax weyn ka bedeli karta saami qaybsiga siyaasadda ee bulshada Somaliland xalna u noqonaysa tabashada siyaasiga ah ee gobolka Awdal ballanqaadkiisa waxa kale oo ugu luxdan qabsoomida doorashada guurtida oo wali aan dib loo dooran tan iyo markii la sameeyay golahan taasi oo fursad u noqonaysa inuu yimaado golo cusub oo wax ka bedeli kara khilaafyada sharci iyo kuwa dhaqan ee ragaadiyay dawladnimada iyo bulshada Somaliland qorshaha Cerro sidoo kale waxa uu leeyahay marka ay 5 sano dhamaato ma samaynayo cadada muddo kordhinta ee ay iska dhaxleen xukuumadihii Somaliland taas oo sal u ah khalkhalka ku dhaca shuruucda dalka iyo dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka oo dalka geeyay khilaaf siyaasadeed iyo nidaam fadhiidnimo ah oo bulshadana ku rido hubanti la'aan iyo xasilooni darro siyaasad ahaan waa nin degan oo qunyar socda
siyaasaddiisana ay sal u tahay diblomaasiyaddu. dadka oo doorasa siyaasadda ayaa u arka inuu yahay murashaxa ugu mudan ee hogaamin kara Somaliland milaygan marka loo eego labada murashax ee kaltanka kula jira. buundada Somaliland ay marayso iyo xaaladda gobolka ee sii xumaanaysa, taasi oo u baahan diblomaasiyad lama dhandeeq ah. waxyaabaha ay u aaneynayaan waxaa ka mid ah sooyaalkiisa gaarka ah iyo inuu yahay nin rayid ah oo aan ku lug yeelan dagaaladii iyo daqaradii sokeeye, isla markaasina baal cusub u furi kara siyaasadda Somaliland, iyo inuu yahay nin ay ku midaysan yihiin laba urur iyo ka badan, loona arko oday siyaasadeed oo waxa ugu yar ee laga filan kara ay tahay in wax walba uu ku soo celiyo halkoodii. aragtidaasi marka laga yimaado waxa uu haystaa qodobo badan oo baritaari kara guushiisa, waxaana ka mid ah guushii uu ka gaadhay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee 2021, taasi oo ka caawinaysa badiba inuu helo codadkii ay ku soo baxeen xildhibaanadii uu dhisay iyo taageeradooda. isbahaysigii uu la sameeyey ururka ka iyo qodobadii ka soo baxay shirkii Celif Weyn ayaa iyaduna u ah shakhsiin karta Jara Irmaan oo dhankay u dhacdaaba guul uu ku gaari karo. sidoo kale waxaa hor yaalla halxidhaalayaal badan oo waxa kaliya ee furfuri kara ay tahay guul uu ka keeno doorashada madaxweynaha, waxaana ugu weyn inuu ka guulaysto murashaxa kulmiye iyo xisbigiisa, taas oo isaga aan uga dhignayn hal guul balse u noqonaysa guulo badan.